إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. kusoo dhawaada barnaamijkeeni rixlatii maca alqur'aan oo maanta dayfkeena uu yahay maxamed carab oo insha Allah aan ka wareysan doono taariikhdiisa quraanka iyo qaabku uu la soo noolaaday quraanka. حياك الله. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك الله فيك أخي سليمان. فردقان قرح بدن runtii loo abaabulay quraankan sida loo weyneeyo waliba hadda noo bilaabanaysa bishii Ramadaan ee barakeysnayd. marka بارك الله فيك. سؤال ugu horeysa dib ku weydiiyo aan ka weydiiyo noloshaada iyo qaabka quraanka aad ugu soo noolaaday. بسم الله. haddaan xogaa idinka sheekeeyo wata markii yaraanteydii waxaan ahaa nin kubadda bahash la dhaho ka dib ordi jiray oo aad u jeclaa quraankan iyo masaajidkan wax badan maana waxaan jeclaa kuma jirin. yaraanteydii magaalada la dhaho Turku oo Finland ku taala ayaan ku soo koray. halkaas markaan joogay waan kubaddan u badnaa. markaan xogaa soo gaaray runtii min fadlillah ilaahay fadliiska sokow hooyaday aabahay badan igu moogtahay isku dhibeen inaan quraankii masaajidka aan jeclaado. ilaahay fadligiisa waan jeclaaday. quraankana markii hore haddaan xogaa ka taabto quraanka waan iska akhrin jirnay markaan yaraa ha ahaato quraanka hoose yar ama si kasta masaajidka markaa dugsiga imaanayo. laakiin markaan jeclaado markaan runtii quraanka fahamkiisa tafsiirkiisa tabarraacay markaas runtii quraanka ila dhamay sidoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala fala tadabbaruna alquran quraankan micnihiisu waxa weeyaan runtii inaad horta ku tabartid oo fahantid. marka halkaas ka bilaabay ayuu runtii jacayl quraanka iga bilaabmaday oo quraanka inaan barto ilaa haddana waan wada baritaankiisii. marka intaas aan ku soo koobay. بارك الله فيك. أن كويديو مركا سو أركتا نصيحة عايزين لهاد أرضي أو رجل القرآن كبرته أو معاني سبرته أو اللي بنكو أذجيه عليه الماهر مع القرآن بالقرآن مع سفرة الكرام البررة والذي يتتعتع فيه نكو أذجيه والله إن ما نصيحة يصير بهرنا إن شاء الله. بسم الله. horta nasiixada waa horta nafteeda horta ugu horeynaya ka bacdi waxa laga faa'iideysan karo. laakiin waxaan oran lahaa walaalaha runtii quraankan sidoo rasuulka sallallahu alayhi wasallam dhahay quraankan kitaabkan dad buu darajadooda u qaadaa qaarkoodna hoos u dhiga. marka quraankan runtii waxa weeyaan diibaantaada adduunyo iyo aakhiro iyo quraanka sukow iyo masaajidka la yimaado oo moogta meesha khayrka laga adwaado waxa weeyaan cumuuman ba isku soo duuduub waxa weeyaan sacaadadaada adduunyo aakhiraba. marka walaalaha waxaan dhihi lahaa horta awalan qofkan hadduu rabo inuu moogtahay quraankan ama cilmiga barto xasan al-basri ayaan jeclay inuu rahimahullah inuu dhahay ilmu نور الله ولا يهتال عاصي. علم إلهي والنور نور كان إلهي مهلا لمصي قف عاصية. مركا هرت أولا مذول ب أنا قدام بكشرنا ذنوبتنا كشرنا مركا ذنوبتنا على يرايا مركا إله سبحانه وتعالى لو يديستو إلا كالميستو وإله سبحانه وتعالى كالميستو لو يديستو إنه إله سبحانه وتعالى القرآن كان يودين تري إله كش عليه سيسر الرسول صلى الله عليه وسلم به جري اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. marka إله سبحانه وتعالى iskasokow juhdi adika go'an oo runtii adig go'an ka go'an oo inaad go'aansatay inaad runtii masaajidkan iyo khayrkan moogtahay raacdid ayaa loo baahan yahay. intaas ka bacdi Ilaahay fadligiis
ilaaha noo sakhiro ani iyo idinkaba halkana ma fadhino ma ogtahay walaalkii wareysanaya aniba dhalinyar idinka fadli badan ama idinka sarreysa halkan uma fadhino balse waxaan nahnay dadka ugu runtii ani maxamed ahaan haddaan ka sheekeeyo dadka runtii ugu hooseeya ayaan aaminsanahay waxay iga tahay bisayt nasiixa naftayda horta marka naftiina marka barakallahu fiik wa ahsana Allah ilayk barakallahu fiik maxaad mustaqbalka rajaynaysaa inaad samaysid quraanka inaad xagga quraan ahaan insha Allah mustaqbalka insha Allah waxaan jeclaan lahaa runtii sidaan sheegay quraankan inaan runtii horta awalan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraan khaas wa ila Allah khaas inuu naga dhigo quraankan inaan xifdiyo oon ku tadabburo oon micnihiisa dhuuxo oon ilaahay subxaanahu wa ta'ala naga dhigay kuwii ku canfalay inuu ilaahay ka dhigo marka cilmi kalena inaan sii raaco intaas way barakallahu جزاك الله خير أخي محمد إن شاء الله رجينا نصيحة وقيمة النصف في سني تذكي إني كفايدين يا أرضية يا ولا لهنا عظيم قرآن كمركب وحكوين ملك أهل القرآن الله نقدر أن نقنه وقرآنك أن وهل كيرنه وقرآنك فضائشه سلامك وبكر معنا إلى حد أحاديث كسوء أرورت إيمانا كهرنا ونوع من المقدمة هذا الكيك وحان كبالله الكلمة بمثابة قائلها الله قائل القرآن وكلمات الله وإياه وكلمة الله وكلمات الله وكلام الله جل جلاله هذا ربي قال جعل شيء قرآن كيس جعله وأهل كيس إنها تكمل نقطه كد ذلك وإله ما أنت والتيسيري سهل الأمر ويسره دذال بلغا دونيا إنها دذاشو وقرآن كأدبرته وأهل ورد كدقته مؤمنك وإن أونا قرآنك وإن أوسن ورد بيسو كم مغنان في كل يوم وإن هذا أقرده مهما كان ذلك المقدار سيدا أقوى ناكسا تدقوا اللبا مد إلهي بأو نعميو قرآنك أو يو حفظية أو هرو قرآنك أو حفظية كاسي سيقى هذا الكلام لقولها الله شيكا كالوليه لأنه من عامة المسلمين ويو قرآنك محفظ سنة لكن عامة المسلمين وددك إلهي قرآنك ونعميو أهل القرآن ويو كل قدبة أمة ودوى أمة القرآن ويان كاي سيقى وحلق الرباع على الأقل بشي مرقرة إن القرآن كأقريه بالله إنه تصوم إذا ما لك جزء وقت بدن كقاعد الميس هل جزء ده كأقريه وقت بدن كقاعد الميس ربما لقيا بيني شني لباتن دقيقة صدن دقيقة من أفر إلى لباتن ساعة صدن دقيقة هذا يقول بلته أو أتسي تجويد لي وأنا أكسر وسي أقرأ ساعة إسكابر دبا إن أقرأه ولو جزءا من يومك أو بشي مرقرة القرآن كذا ما يسوى سو أرن أد وناكسن ما هذه الله كوافجي وحوين ويا وحوي رسال كان يسقى القرآن كحفظ سن سقوا حل يسدح جزء كيرين سدح جزء ذات كيرين سد بال وين بعتهبال هذا كبر سواء الرونات أو صبح هذا يعني أسبوع مر قرآن كعاد ما يسوى وهرن آدي أدو فيعة هذيك على الأقل طبعا كبري مرد ما مركز هلا ليه هي معها وحو نصوص ليه هي وضات سايين ويدو دبيت وحوي بالتجربة أهل الفن ما وحيدهن أنت قرآن كقف حافظك وكو إلى لنكره حفظ جيسا وإن طبعا كبري مر ولا ما يه هذا حافظيه هذه وسايين وقلب وحفظ جيسا وسخن قطوع مع الأيام إذا مصر القرآن كما سابق رداه هذا الوحي يقول لي ما له كل ميل كقرية أنا ما أركن لكن هذا ضفير السوا وهذا الضبوي وعيري
القرآن يا قرآن كورنا يا بوي من هجرني يوما هجرته 10 هل ما لنكي أنا جاي هجرود أو يعني إيش كيدا يأخري وياه أنا قلنا طبعا مالين بانك هجرودا طبعا مالين نكي هجرودنا هجرته شهرا بلدن بان أنك هجرودا وكجت هذا حدو إيجا هجرودنا هجرته عاما سنة ضمن أنه هادو سنة إيجا جت هذا هجرته الدهر كله ولا جيبوان كهجرودا بيقول قرآن كابا سالة هسين قرآن كو أغري وايد طبعا لين ما يعني حديثها ما ملكو قرنتها ولكن ولسان حال القرآن ودبوي ما القرآن كهذا أغري وايد تأثير كذا ودريم إيش هل مالك إذا كسر مرتو قرآن كأغري وايد ولما ديتك يعني قرآن كعلى قدر لا أرنتها آدو شيء دريمة هذا مال أغري وايد ثمن مال هذا أغري وايد أنا وابدي وحويا وخطر وايد بالهذا أغري وايد أنا كم سيدرا marka insha Allah ta'ala bal aynu ku dadaalo in aan quraanka wehel ka dhigano oo aqrino على الأقل حتى waxa laga yaabaa inaad tiraahdo ma akhri kara ama dadka qaarkii waxa laga yaabaa inaysan akhriya ilaahay baa taysiiri waa dhageysanaysa ajhizadan iyo ashridadan iyo alaabtan iyo waxan iyo kombiyuutaraadkan iyo telefoonadkan iyo waxan oo dhan waxa weeye xujo weyn ba hadda dadka ku ogan oo berigii hore laga yaabaa xujo weyn ah saaran dadka ما دهي كرتيد ما واحد بران واي ما أورن كرتيد جهاز كاس كشيدو أما تلفون كاغا شيدو مصحف كلبح والله سعود دقيشو جزء كاغا مالنتي هالكاس سيدا كو سعود ساحداد يشو إن بدن دقاها القرآن كل عام يعني دين شيء يعني أنا ويرانتي شيخ هذا من حق حسن الخاي حتى الشيخ كم ذا أنا ير يا والدك الله يرحمه والدنا شيخ علي زوفي وحلقة يوقس بجرينا فريش إن أن آدو يرى وحن كو قرنيا بريغاس هذا أضيبا نسكن نقضي لكن بريغا إن أن آدو يرى وحن كو قرنيا حلقة أن كمدها هاي وددك فريستان كمدها أيام المركة قاركي صلاة أو لغو جيرو هري فريسين جري وهلكا فريسو أرجل صلاة وددك كجرا هلكا وحن كدريمي إن أن تضب جير كيرا لأن أدان تضب السنة قارب إمدهين safka hortiisa fariiso salaado lagu jira salaado gal ay oran lahaa sidii caadadiisa ahayd da'deedu inta ma garanay laakiin halkaas aan ka qiyaas qaatay yani waxaan xusuustaa salaada oo la oogay oo la galay oo la aqimay inuu ilaa dadka hortiisa fariiso inaan gadaal ku ciyaaray waxbu ka baqaya mugta war xagga fariiso iyadoo xaalkaygu ay sidaa tahay ayaa haddana xalaqadaas بين المغرب والعشاء يتم بعد الفجر أنا كم مغنان كريم وجزء الأغرياء مغرب في عشاء دحدود فجر كبعدين جزء الأغرياء شن يتومنكي بري مربع قرآن كسيدا لقول مية لكن جزء الأغرين اليوم أيام من خلاله تجويد كلا صحية طلب داش أرضها أو ضدك غير قراءات كأيكو برانيان oo waxay ahayd xalqa mutakaamila bay ahayd marka yaraantaydaas ayaan fariisan jiray oo yani anoon xataa musxafka si fiican uga kicin karay quraanka ayaan iska fadhiyi jiray mana la ii ogoleen inaan ka maqnaado fasaxna ma lahayn jumcana ma lahayn ciid xataa ma lahayn xataa yowm alciid lama joojin jirin walaa ciid walaa fasax walaa ma jirin waa ku qasbanayn وأخو خصبنا إننا فريسنا هالكا وحنا الكبري دمبه وتمجر إيه أنقاري أيام دمعينا القرآن كي أن ودوك سوى جري أن تجي لي أو سك ما قرنا يسا لكن مركي أن دمعينا القرآن كأسود جد سدوا أن حفظيه وحنا ركينا سك حفظ سنة هيبة وأن حسوستا ومركي أن دمعينا القرآن كأن مالك كستجوز بال يعني ديارين جري وإسك ديار سنة وإسكن كيني ونسكو يرهاقعد ومن كثرة السماع كنا ونقض كما عرفت أن فسح على هين العيد مال هين الجمعة على هين وعبلا هين إن كو قصبنا إميل هبلي هلكا لقي هلكا الوصوع ياري وحازي سنجري وحاي كانت بفضل الله إنان جزء انت دياريها بينك أن وقبحه الوالدك الله يرحمه أن وقبح تاسي إسكاهيد في خلال شهر قرآن كسيدا سامة وحفظيه إذا
taas way hadda marka aan lagu leeyahay had iyo goor quraanka dhageyso oo xalaqaadka had iyo goor hal la sameeyo oo dhagahaagu markay quraanka ay ku bataan oo carabkaagu uu ku bato walow yaadan xifdinin ba hadaa doonto akhriskaaga iyo carabkaagu haduu ku bato dhageysigaagu uu ku bato marka dambe aba waxaad arkaysaa xifdii baad arkaysaa Allah naga dhigo min ahli alqur'aan insha Allah insha Allah intaana kusoo koobayna waa جزاك الله خيرا يا شيخنا انت اسكدي وحلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته